geed bogeed ka tilmaan lahe galabtii dhaga weyne intuu dawgaba goostay gabrada uu ka samaystay hadba gool ku shidhaystay ninna uu gudbi waayay miyaydan garan geed bogeed ka tilmaan leh galabtuu lixla joogay godka jeelka Mandheera gidaarka uu jabinayay nacabkii ina gaadhay sida cawsha u gooyay miyaydan garanay geed bogeed ka tilmaan leh galabtay u xumayd askaroo gudgudaya gacanta ay ku dhigeen godka dheer lagu tuuray gaalni uu ka dulbaanay agta guudka ka saaray nimankii gaba waayay sida aarka gadooday kala booday gidaarkiyo koodbuur yaan garanayno ciidamadana animka sawirka ka qaadaya waxa weeye ciidamada SNM qaybta loo yaqaano Sheekh Sanaani haddii aad islahaydeen dumarka ma qayb galaan dagaal dhul lagu xoreynayo maanta ayaad hortiina ku aragtaan hablahaasi waa hablaha ka tirsan ciidamada SNM-ta kooxdii aan markii hore idin soo sheegay ee Sheekh Sanaawi waxaad aragtaan iyagoo hubkooda u dheeyahay oo sita qoriyihii garab taagana walaalahoodan maanta ku baxaya inay qabsadaan magaaladoodii magaalo madaxda oo ay dhulkooda Hargeysa هذا الدمع وعوي قياسياشا أيضا مضان ومقعود هذا هو هرقلي أيضا بدن بقى مقشين هذا كذا waxa weeye xirag kale oo ay jirto oo iyadana sida xirooyinka kale aan soo maray looga diyaar garoobay imika in baawarada la boobo oo lagu dhaqaaqo dhulkii waxaan u maleynayaa inaad maqlaysaan dhiga dhacayeen ciidamadan waxa la dhahdaa waxa ka tirsan yihiin guutada Sayid Umar sida hore oo maqlayseen guutooyinkan SNM-tu waxay ku magacaabeen sheekhayaal iyo asxaabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam taasoo guusha ilaahay baa bixiya maantana waxa xaq u leh ciidamada idin hortaagan ciidamadani waxa ay sameeyeen wax aniga iyo dad kale oo farbadaniba aanay yeelin abaal haddii ay cid ku leedahay dhulkeena kuwa idin hortaagan baa ku leh waxaan ku kalsoonahay ummadda dhulkeena waqooyiga ku dhaqanay inay abaalka gudi doonto oo ay xusuusnaan doonto taariikhdu ilaa iyo weligoodba marka ay dhintaan xitaa kadib dhalinyaradani waa dhalinyaro haddana ka mid ah ciidamadii SNM-ta weli oo aan dhex joogo waxa ay maanta ku dhaarsan yihiin in ay u kacaan dhulkoodii oo ay xoreeyaan waxa dhagteeda ku soo dhacaysay iyagoo in badan isku leh caawa waxaynu ka cashaynaynaa Hargeysa anaguna shaki taa kama qabo barbaarta haddaan la layn bilaawuhu dhiig man tagin ninkii ku buddigi lahaa haddaan baqayuhu ku lalin halyeyga badbaadadaada haddaan bahaluhu ku shirin haddaan birmageydadaada rasaas loo berartisiin waraabuhu baan ka dhigan baroorta qofkii lahaa haddaanu u rogan bilkhayr biraaya xijaab ka dhigan wixii hadhay baylahdaada haddaan buntuk loogu talin xanuun lagu baraq nuglayn nin bayrlihiisana ku gelin miyaynu isbaran
مرتعي تدوري لداك لداشي تقولني صداقي ضمن كان نصيبي مرتعي تدوري لداك لداشي تقولني صداقي وحسدوا بفرنطا وحسدوا دهانتي وحسدوا بفرنطا وحسدوا دهانتي وكعد بيدي حقوقي وحسدوا بفرنطا وحسدوا دهانتي وحسدوا بفرنطا بغداد حوضي waxaa gudayaa habeen wuxuu gelayaa saqdhaxe waxaa gudbayaa biriij ku dul taagan gees gafuur wiileed ka baxay waxaa gigirqaasa sudan war kama aan gaabiye raggii go'ay wuxuu go'ay ويسعدموي انت كلام بيتروي بدون يلا والله 100 صدح اي حاجه وحي دتي موي انا كلا فرين كبد با دماتay
halka markaanu ka tallownay waxay ahayd saqban habeenimo ah jeedkan waxaa ku yaalaana kataloonka gabiley buu ka soo xigaa bari halkaa waxaa kaga beegan ceelgeniseed halkaani kaaraa kaga beegan waa berigii marka ay ku dhowdahay qiyaastu 4 aroornimo ay tahay ayaanu eedaanka ijaara dilowyahan gangeeskii lagu beeray dhiig iyo dheecaanka wadhatada dhexda talow iskaga maray dhirta ma u abtiriyaa sida dhalashadeedu iyo dhaqankeedu kala yahay mise wuxuu ka dhigan yahay habartii mar dhooftee doonidu la dhacantee badda dheeligeeda iyo dhaxanta iyo dabaylaha dhawowelan ka qaadee kadib dhowr ayaamood iyaday dhaqaaliyo nafa kala dhaqaaqeen salka dhigatay ciidee dhulow kaaba kaca tidhi cabdiraxmaan axmed cali u xeelay boqol 45 cod maxamed xaashi cilmi u xeelay 140 cod 5 cod buu kaga helay قرينيا عبد الرحمن أحمد علي قدوميها شنات قرر كدقدقاق ودنك الصومالية وما تعطيتي كوها وهوي نيرون باطوبح لها لو ما صور بحرين استقع كسور بحي استقع إنه لا شغينين waxaa kala gaarsanay halganka xaqa ah aynu ku jirro iyo xubnaha SNM meel kastaba ha joogeen iyadoo amniyad iyo daacad iga tahay in muddadii aan ururka madaxtinimadiisa hayay oo ahayd 5 sano iyo googo 6 sano ku dhoweyd inaan mahadnaq u ballaadhan oo niyada oo qalbiga sidii fiicnayd sharafta lahayd xaqdhowrka lahayd la ii sharifay la ila shaqaynayay inaan halkan soo jeediyo gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa waddanka Soomaaliya وتنورينيا وحنا كل قضية قاعد علينا وتورا إلي في قدوميين سيدي في عميد آدي أريونا سيد أو شركة إنه كوه قامين حالة موسى بيحي آدي هكا لغو برمي ما هذا ذلك بسبب يدك ولا يسهل شكلية waxaan ku yiri waxaan rajaynayaa inaad noqoto Muuse aan ku arkay shirkada Muuse laga sheekeeyay inuu la noqonin waxaan markaad aragto ammaan muxuu ahaa haw ku aragto yuu baad baran karta waxaan rajaynayaa inayna waqtina siisaano ragii loo sheekeeyo waxay eegtaa saan u tiyaano xukunka nidaam dambeeyo aan rajaynayaa waxaan isla hambalyeeyaa walaalkay حسن عيسى وسنة ورتين يدقوا بحجين حسن عيسى وحيوانين آدي قبانا هاي وأنا والله غيرها ومدير كسان كنت لي أسلا إيه يسوي قوة يا رسول هاي يقحوا رسول هاي مركا آدي بان قبانا هاي ويا رسول عيسى يحاولوا مسوقا ويا كنت لي يحيروا القوة الرئيء أسلا أهلنا كدورته مركا أسلا آدي أقول سلا ونفرح سنة عليه والمدير كنت بحجين قاعد بدورته faarax oo hadda ku nool degmada oog ee gobolka Saraar waxaanu ka wareysanaynaa howlgalkaasi sidoo u dhacay taariikhda sida halkan ku xusan waxa weeyaan 83kii bishii afraad 12kii abriil ayay ahayd aasaaskii iyadoo loo dabaaldegayo xuskii ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed afar casho ka hor ayuu gacanta u galay Allah u naxariistay Cabdullaahi Askar ciidankii dawladda siyaad barre qaybta 26aad isagoo howlgal wada howlgalkii markaa waanu ka bedelanay oo howlgalkii markii hore aanu wadnay waxaanu ugu talagalay inaanu isaga kaga badbaadino oo kaga furano howlgalka waxaa nagu hogaaminayay Allah u naxariistay Ibraahim koodbuur aniguna taliya ku-xigeenkii ayaan ka ahaa anigu
Independent Republic of Somaliland in May 1991 under the leadership of the SNM, the Somali National Movement. ka tilmaan lahe guutadii aflibaax gudoonkii qarashyaale gaashaankii harag waafi geelankii madaxdiin iyo manin baan garba dheeriye cadaaday garanay geedba geed ka tilmaan lahe galabtuu ina biixi gumburaha ka ridayey iyo goobta hargeysa hadba gaas kicinayey jawaanka uu guntanaa galabtuu moorgan lahaa alla giirooy dabadayda giigii baa ka baxaysee xaggeebay mudgala geeraarkayga ujeeddo abaal waa la galaa waana laysu gudaa raggii good ka fogaadaye gar shisheeye u dhoofaya gaas wardoonka ahaa kuwii gaydha xoreeyey malahay cabdigaadhow aniga iiba gudboona I'm the leader of the hijackers. My name is Captain Awil Adami, and my friend is Ahmed Haji Muhammad Adan and Bashir Musa Muhammad. So that I was feeling tired. My friend Bashir, he will give you the statement, full information about our hijackers. So that if the international community does not come to help of the struggling Somali masses, even more desperate actions will be forced upon them. Considering, however, that our objective is not to hurt innocent people, but to help them. The humanitarian nature of and the person of Somalia, the government of Somalia, are taking a guarantee to save the Somali students and others. And that succeed is behind of helping of Ethiopians. Ethiopians, they try to save the passengers, our service, and which students and the diplomatics, they are arrested in the central jails of Somalia. وجد محانو يري ولوغي وانكيغ في عن وجد محانو يري ولوغي وانكيغ في عن وحي لكن يطلعون نفيد محان كوابشي وحي لكن يطلعون نفيد محان كوابشي الكلمة نهيتي وحوض ويفرستي ولا الكلمة سؤالي ستة قرها شيرو لهلو waxay saluugayso xaajadu ka sinaweyn nima darajo siisaane hadba qolad laga simaamaa sabirsiisi halku ina saweyno ma aha geeda sarwaabe wajad maxaanu yiri walloogi wankayga fiican wajad maxaanu yiri walloogi wankayga fiican dagaalkii saacada bilowday waxa weeyaan markaa 17kii waa 17 October 1984 waa burcaduuri dagaalka loo yaqaan burcaduuri
imisadii buu idin dagaalkaas wuxuu bilowday duhurkii waxa uu si xiriir u socday ilaa 7 habeenimo 3 jeer ayaa ciidanka la bedelay oo 3 raac ayaa marba raac dagaalka soo galayay 7 habeenimo ilaa xilliga 3 raac baa dagaalka soo galay ma xaqiina la bedelay mise kuwa soo kale ayaa la bedelayay annaga gurmad noo imanayna ma jirin cidiga noo keenaysana ma jirin ninkii dhaawac ahaa iyo kii dhintay iyo kii bad qabay 3 waa dhinac jiifa cidiga ku keenaysa ma jirto gurmad xagga alle kaaga yimaado xagga rabbi bay xaqiisa laga taakuleeyay laakiin cid kale oo loo soo gurmatay oo goobta loogu tiimay jirin ilaa iyo 7 habeenimo ayaa dagaalkii socday 7 ilaa 9kiina meelo teelteela ayaa taas ka sii dhacaysay dagaalkaas xilliga ayuu soo gabagaboobay waxa goobta maalinta nagaga shahiiday 30 mujaahid oo kamid ahaa taliyihii ciidanka yaga maxamed xaashi diiriye uu kamid ahaa xamid ibrahim yaasiin uu kamid ahaa ahmed faarax xirsi ahmed yool uu kamid ahaa maxamuud aadan madar madoobayare rag badan oo caynkaas oo 30 ayaa maalinta goobta nagaga shahiiday dhaawac ayagu wuxuu noqday 32 uu kamid ahaa nin iminka naafa oo halkan jooga oo la Yuusuf Meydal Cumar inaad arteen kara ayaa laga yaabaa subaxnimadii annagoo raggii wixii daanay wax ku dhicin la iska tabcaansan yahay waxaa noo yimi 18 nin oo uu wato nin la oran jiray maxamed xaaji muuse haragwaafi ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye oo ka soo gurmaday meesha laga dhooba guduud goobtii ayay noogu yimaadeen waxa kale oo isla goobtii noogu yimid abaanduulihii ciidankii xoreynta ururka SNM Ibrahim Koodbuur oo isla rag markaa dhowr iyo 10 nin gaari ku sida intiiba waa markii la isu geeyay meydkii iyo dhaawacii iyo wixii la soo ururiyay idinku markaas 300 iyo xogaad ahaydeen waxaan nahay ilaa 300 iyo dhowr iyo 60 nin waxa dagaalamayna maalin iyo nus intaas ayaa dagaalay markaa dhowr iyo 30 waa la idinka dilay taliyihii la kamid yahay 30 dhimasho waliba halkii baa jilibka 30 dhaawac ahaa wadamada ma xasuusta meesha ciidankii cadowga waxaan xasuusanahay oo goobta maalinta gaadiidkii gaashaana ee ciidankii faqash lagaga gubay intan anigu indhahayga saaray 11 baabuur oo ay 9 ka mid yihiin beebeeyadii dagaalka oo ciidankii faqash ay aad ugu dheeran jireen iyo hal baabuur oo ah TR oo saariyay qoriga loo yaqaano shiilka iyo gaari 4 wheel driver 11 ka anigu waan arkay meeshii la oran jiray burcaduuri waxay noqotay maalinta wixii ka dambeeyay qubuurihii beebeeyada ayay noqotay maxaan wariyaalis jiray dhexdooda ka wasamaysay maxaa wacd layla qaaday rumaysay